Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal 24. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada warka Royal TV oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada London. warkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo Maxamed Cabdisalaada. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta waxa xariga uu ka jaray dhismo cusub oo casri ah oo lagu soo kordhiyay madaarka magaalada Berbera. waxaa warbixinta warkaasi magaalada Berbera inooga soo diray wariyahana Cabdiraxmaan Maxamed Cige. madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta xariga ka jaray qayb cusub amaba terminal cusub oo lagu soo kordhiyay garoonka diyaaradaha ee Berbera International Airport iyo walibana 12 kiiloomitir oo ay taar ku wareejisay wasaaradda duulista iyo hawada waxaana mashruucaasi hirgeliyay dawladda dalka Kuwait. madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo safar diyaaradeed ku yimi magaalada Berbera ayaa ugu horeyn waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Somaliland. دب مدن مدحوينه waxa salaantaada u diyaara cutub ka tirsan ciidanka qaranka mudana madaxweyne ku soo dhawow. intaasi ka bacdina waxa uu madaxweynuhu ka qayb galay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu daahfurayay dhismaha terminalkaasi cusub. munaasabadaasi oo ahayd mid qiimaheedu aad u sarreeyo ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro tiro badan, salaadiin, xubno ka tirsan golaha baarlamaanka iyo guurtida, kooxaha idaha iyo dhaqanka iyo marti sharaf kale. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka duulista iyo hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo sheegay in maanta laga bilaabo garoonkan oo ahaan jiray garoon military uu noqon doono garoon shicib. gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo soo dhaweeyay waxqabadka ay qabatay wasaaradda duulista iyo hawada isagoona xadhiga ka jaray terminalkaasi cusub. farxad weyn bay ii tahay maanta aad iyo aad inaan ka soo qayb galo xafladan furitaanka terminalka ay loo dhisay dawladda Kuwait Fund inoo dhisay dawladda Kuwait inoo samaysay Kuwait Fund. terminalkan aad iyo aad buu ahmiyad weyn u leeyahay dalkan iyo dadkan u leeyahay waa mid qiimo iyo qaadana sidaynu aragno oo macno weyn inoogu fadhiya oo international ah oo qiimo weyn inoogu fadhiya oo wax weyn u soo kordhinaya dhaqdhaqaaqa iyo xarakadda duulimaadka iyo xarakadda ka soconaysa dalkeena insha allahu tacaala waana midaynu ugu faanayno waana midaynu ugu mahadnaqayno sidaa daraaddeed dowladda Kuwait iyo ciddii gacanta geysataba. keesta kalena waxa uu waxqabadkan soo dhaweeyay Suldaan Maxamed Axmed Ismaaciil
oo ka mid ah salaadiinta gobolka saaxil. bismillaahi salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. maanta munaasabada qiimaha leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada golihii dhaqanka bulshooyintii haweenkii la isugu yimi ee lagu furayo madaarka Berbera International Airport aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxqabadka xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo. munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasina ka qabsatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera markaasina mashruucan ay hirgelisay dawladda Kuwait ayaa waxa ay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera waxaana xadhiga ka jaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo. Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera.